Maalin maalmaha ka mid ah, haweeney ayaa aragtay 3 nin oo taagan bannaanka gurigeeda. Waxay tidhi, ma waxaad tihiin kuwa gaajaysan? Ma jeclaan lahaydeen inaad guriga soo gashaan? Waxay yidhaahdeen, ninkaaga ma guriga ayuu joogaa? Waxay tidhi, maya, weli ma uusan imaanin. Waxay yidhaahdeen, haddii aanu joogin, ma soo geli karno. Fiidkii markii uu ninkeedii soo noqday, waxay u sheegtay waxa dhacay. Ninkeedu wuxuu yidhi, tag oo u sheeg iyaga inaan imid. Ku martiqaad gurigeenna. Waxay tidhi, ninkayga ayaa yimid, waxaad tihiin kuwa lagu martiqaaday gurigeenna. Waxay yidhaahdeen, guriga ma wada geli karno. Waxay tidhi, maxaa yeelay? Ninka koowaad wuxuu yidhi, anigu waxaan ahay hanti. Ninka labaad wuxuu yidhi, anigu waxaan ahay nasiib. Ninka saddexaad wuxuu yidhi, anigu waxaan ahay jacayl. Waxay yidhaahdeen, hadda ku noqo guriga oo weydii ninkaaga midka uu rabo inuu soo galo. Waxay ninkeeda u sheegtay waxa ay sheegeen. Ninkeedu wuxuu yidhi, aynu u wacno hanti. Waxay tidhi, aynu u wacno nasiib. Wiilkooda yar wuxuu yidhi, aynu u wacno jacayl. Markaas gurigeenna wuxuu noqon doonaa mid jacayl leh. Waxay isku raaceen inay wacaan jacayl. Waxay u yeereen ninka loo yaqaan jacayl. Labadii nin ee kale ayaa sidoo kale bilaabay inay u socdaan guriga. Waxay tidhi, keliya waxaan u yeertay jacayl, maxaad u soconaysaan? Labadiinnaba waxay yidhaahdeen, halka uu jacayl jiro waxaa had iyo jeer jira hanti iyo nasiib.